ummadayna ugu sameeyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo mahadnaqayaa xildhibaanada sharafta leh ee ka soo qayb galay iyo runtii bahweyntii faraha badnayd ee hadiya habeen hiilka iyo hoogaba la garab taagnaa runtii nala shaqeynayay dhammaantoodba waan u mahadnaqayaa qofku kala sheegi kari maayo walaalayaal runtii doorasho waxay ahayd adag baa ahayd oo xamaasadeeda lahayd oo runtii aad iyo aad isku dhawaan laakiin casharo badan aynu ka baranay oo reer Somaliland ku cusub marka waxay noqotay sunnihi wanaagsan ee Somaliland ku caan baxday ee ahaa in la isku tanaasulo bay noqotay oo runtii ayna dheernahay deegabi Soomaaliyeed kale runtii xeerarkeena wax badan oo qalbiyaaba ka jira oo runtii aan kala cadeynahay marka ay marxaladaha tartanka oo kale ay soo gaadho amaba khaasatan kii ugu dambeeyay oo xeer hoosaadka golaha wakiiladu wuxuu qeexayay runtii oo cadmay jirin meelo badan baa dadwada ku jiray oo cidda hagaysa golaha oo kale dastuurku uu sheegay xeer hoosaadka wax buu qoray marka qabiyo badan baa ku jirtay oo runtii aan cadayn waxaan rajaynayaa insha Allah fadhiga koowaad ee golaha wakiiladu shaqadooda koowaad qaban doona inay tahay in dib eegis iyo sixitaan lagu sameeyo xeer hoosaadka golaha dalka si ay u cadaato marxaladii shalay dahaalina soo maray kale oo ahayd tartanku markuu saas oo kale cidda hagaysa golaha si ay u cadaato marka golaha guurtida gudoomiyaheeda iyo maxkamadda runtii dadaal bay sameeyeen at least waxay ku dadaaleen inay xakameeyaan khilaafka gudoomiyaha furatoona isagoo sharci u lahaa ay isaguna sacrifice sameeyay dadkiisii u turay waa lagu ammaanaya oo markaa u tanaasul annagaygiina loo guulaystayna waanu hambaliyeen waa suno wanaagsan oo Somaliland halka ku soo gaadhay Siraya 8 cod laga helay kursi madaxweyne 8 cod oo kaliya Faysal Al-Waraas 3 jeer madaxweyne tartamay oo waayay Cabdilqaadir ayaa kursi madaxweyne oo tartamay oo waayay taanuna hadda tartamana laga helay waxaanayno qasbana ariga protocol marka insha Allah haday tan sheegtay tadabban guulaysan doona hadii la ilaahay waxaan aad u mahadnaqayaa 8 xildhibaan ee cuduriyay 9 xildhibaan ee cuduriyay baan u mahadnaqayaa noo cuduriyay aniga iyo fartoon oo runtii kala degmaa qaarkood waligood meel ku maaran kulmi laakiin wax soo kaay keenay duruuf siyaasi soo kaay keenay iyo mowqif qaadana soo kaay keenay runtii marka arrimaha adag baa ragga la kala bartaa oo la kala ogaadaa waan ku mahadnaqayaa dhammaantoodba waxaan si gaar ah u mahadnaqayaa labada xildhibaan ee ka soo jeeda gobolka Awdal xildhibaan Abubakar iyo xildhibaan Fuad oo aniga codkiisii marka iyagana si khaas ayaan u mahadnaqayaa waxaan ku guwaabinayaa insha Allah in isku tirsanaano kolay shirarku noo socdaan golahana insha Allah anagoo mida ayaa danaha qaranka aan ka shaqeyn doonaa hadii la yiraahdo isku duubnaan doonaa ku kala tagi mayno ku niyad jabi mayno ku qorshey mayno mas'uuliyadda qaranna waan qaban doonaa taayada khaaskaana waan meel marin doonaa hadii Ilaahay nafta nagu soo insha Allah Ilaahay Somaliland ha barakeeyo dalka Ilaahay noo barakeeyo insha Allah waxaan rajaynayaa halkan iyo inuu qowmeen ka sareysa inaynu gaadho. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.